aad iyo aad baad u mahadsantihiin. marka hore horta waxaan u celinaynaa mahad ilaahay annagoo nabad ah isu kaayo keenay xafladan afurka ah ee dadkaas ehelka ah ay isu yimaadeen. waxaan aad ugu mahad celinayaa intii soo qaban qaabisay abshir iyo komitiyadiisii, chairman Nairobi Youth Farax iyo guddigiisa guud ahaanba, iyo dhammaan dhallinyartii wanaagsanayd ee ka soo shaqaysay xafladan ka miro dhalisay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. mahad gaara idin haya. waxaa kaloon rabaa inaan xuso madaxda halkan joogto, Mheshimiwa Abdirazaq, Lagboqol, member of the Council Assembly. aad baad u mahadsantahay. soo dhawow. hal uma xusi karo, dad badan oo mas-uuliyiin ah halkan fadhiyo, dhallinyaro badan oo mudnaan kule kambeynkan ba halkan fadhido. qof walba oo halkan fadhiyana mudnaantiisa iyo sharaftiisa ayuu ku fadhiyaa. dhammaantiin all protocols observed waan idin wada xusaya. waxaan doonayaa inaan si gaar u xuso Dr. Siyaad Hilow Abdi, Dr. Madale, oo Australia uga yimid inuu dardar geliyo kambeynkan. xubin lafdhabar ah yuu u yahay kambeynkan. 19 saacadood buu diyaarad soo saarnaa. labadii trip ee aan ku soo kala bixinay deegaanada wuu nala socday, isagoonan hal habeena naga baaqan. wuxuuna sii dheer yahay Dr. Siyaad inuu ahaa ka mid ahaa musharaxiintii MP Wajeer South soo dalbatay, Lagdiima tagtay, inkastoo isaga markaa iyada waddanka uu ka maqnaa. Lagdiima geysatay application, mar alla markii lagu yiri waa lagaa tagay, Maxamed Cabdo waa la qaatayna, bartiyadeed ka sii bilaabay dadaalkiisa uu igu taageeray. Dr. Siyaad, you have a special place in our hearts, inshallah. And with you as a guiding light, I'm sure we're not going to make any missteps, inshallah. waxaan idiin sheegayaa horta way mahadsan yihiin dhallinyarta halkan joogto si gaar ah, maxaa yeelay muuqashada kambeynku iyaga ayaa isu xil saaray. social mediahaas laga sheekeynayay oo markaad baal rogtaba baalka kale aan annagu ka soo bodayno, dhallinyartan ayaa u sababa, iyaga ayaa u sababa. waad ku mahadsantihiin. abaalkaas waan idiin haynaa insha allah. inta hadda ku howlan abaalkaas waan idiin haynaa. kuwa hadda aan ku howlaneen ee aan weli gacan ka geysanna waxaan leenahay habeen kaama tegin weli 3 bilood baa inoo harsan insha allah. marka nin walba wixii kaga soo aado howl, waxaan hal qof ma qaban karayo. howl uu hal qof qaban karaya maaha, waa howl caam ah oo cid walba ay mas-uuliyad ka saaran tahay. marka anigoo si gaara idinkaga codsanayo, idinla dardaarmayo, walaalayaalow, waxaad samaysaan inta aad ka geysan kartaan dadaal ka geysta arrimahan social media. baraha bulshada waa meelaha lagu kala hormaro. xitaa adigu ha samaynin videoga, adiga ha samaynin qoraalka, adigu ha soo qorin. mid ay tiimka soo qoreen, campaign team, waxaan leenahay media team culus baan leenahay oo mar walba wax soo geliya. share ku dhibas, just share. ama intaad like u saarto, comment yar hoosta ugu qor oo ducada noogu daran insha allahu tacaala. ya maalmihii barakeysnaa baan maraynaa soo maaha. allaha ku guuleeya, xitaa waa xubin weyn insha allahu tacaala. marka raggaas tiimka ah ee dadaalka aragta wado, inta aragta soo waday, qalbigaa loo dhisay insha allahu tacaala. annagana mataqaanaa hana la garab istaago. waxaan idinkugu bishaaraynayaa kambeynka iyaga iyo musharaxiinna waa mid laga aqbalay, not just Wajir County,
the entire Kenya and beyond. Marka wada wanaagsan baad haysaan la socdo horta taasna waan qalbiga inaad gashataan baan doonayaa. Our candidature has been accepted beyond Wajir County, beyond Northern Kenya, beyond our country Kenya. We've got support in every corner of the globe. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Mahadaas Ilaahay baa iska leh. Markay halka taagan tahay oo koonka nalaga taageersan yahay annaguna qabiil naloo eeday oo loo eegaya oo kaliya qofka aan nahay iyo wixii nagala kulmay ama mataqana ficil ahaa aan sameynay intii aan saxaafada ku jirnay niyad wanaagaas waa inaan gudnaa samba sandugu gudaa niyad wanaagaas iyo taageeradaas lixaad kale ee aad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed inay nasiisay iyo kalsoonidaas waxaan ku gudi karaynaa xilkaan loo dhibay inaan sidoo yahay uga soo baxno biidnillaahi kariim annagoona cidna u kana bayelin annagoona cidna aaba u yeelin annagoona geeskaas baad ka timid dhihin annagoona mataqaana beeshaas aad tahay dhihin annagoona wax cilada u yeelin under any circumstances Wajir South residents anigu way hal laba yima saddex yima waa hal waxaan ogahay dhibaatooyin badan inay soo mareen dhibaatooyin badan inay soo mareen maalin walba haysto waxaan ogahay darbiyo dadka la kala dhaxdhigay inay jiraan oo lagu kala qoqobay waxaan ogahay in ay jireen sanadahan dambe ba noqotay madax u adeegayso dad yar oo fara ku tirsan waxaan idinka ballan qaadayaa Ilaahay hortiis tarbiyadaas inaan burburin doono dadka meedeen doono haddii Ilaahay yiraahdo qof walbana xubin wixii uu xaq u lahaa meeshiisa loogu geen doono insha Allah taala Ilaahay khayraad buu nasiib Ilaahay khayraad waafiyo nasiib khayraadku waafiga Ilaahay uu nasiib waxa kooka dadkan ummadeena waa khayraad human resource wadamo ku hormaray oo adduunka kaga hormaray baa jira wadanka Japan la yiraahdo the biggest resource they have is human resource using technology they have reached far heights that many other countries in the world have not reached one of the best economies in the world because they're using the human resource to develop products that are needed across the world. Human resource keena markaan haysano aan isdhegaysana walaal markaan ummadeena ay tahay khayraadka ugu weyn aan haysano waxaa laga maarmaana in marka ugu horeyso aan ummadeena ka dhisno xagga waxbarashada sida kaliya aan ku gaari karno ummadaha naga hormaray waa inaan waxbarashada tayeyno oo aan ummadeena waxbarashadeeda ay noqoto mid taabagal ah oo lagu tashan karayo waxbarashada deegaanadeena ma tayeysno xataa fasalladii nooma dhisno qaarkood iskoolada ciyaalkeena in badan oo kamid ah waxay wax ku bartaan geedo hoostood iyo cadceedaas aad aragtay ay wax ku bartaan oo 2 saacadood ka badan 3 saacadood ka badan aan lagu hayn kareynin marka waad dareemi karaysaa cunuga markuu fasalka 3aad fasalka afraad yahay ee 3 saacadood ama 2 saacadood ee inta qabowga kaliya wax la bareen markay quraacdu soo ma taqana kululaato la yiraahdo iska bax wad garan karaysaa waxa uu waxbarasho heli karayo iyadoo haddana ay dhibaato naga haysay macallimiintii oo gabaabsi kuwa deegaankeena wacyiga jiray iyo dhibaatooyinka jira ugood anigu haddii aad doorataan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan tayeynayaa waxbarashada deegaanka ka jirto iskoolada hadda jira ee aan qalabka iyo fasalada u dhameystirno insha Allah inaan fasalada iyo qalabka u dhameystirno insha Allah taala idan ka ballan qaadaya waxa kale oo sameyn doona haddii Ilaahay yiraahdo libraries ay yeeshaan deegaanada ugu waaweyn 7 wards ka in mid walba uu library yeesho si ciyaalka marka ay xiisada ay leeyihiin macalinkoodii uusan joogin ay mataqaanaa library-ga buugaagta ay ka soo qaateen ay akhrisan karayaan oo marka iyada ay u kabi karayso waxbarashadii ay wadeen
macallin la'aanta jirtana insha allahu tacaala wala tacaali doonaa iskoolada waxaa kaloo jiro laboratory hal laboratory waxaa laga yaabaa in ay isticmaalayaan 12 streams waa afar somaha form secondary form 1 3 streams form 2 3 streams maqawa total yani 12 streams somaha 12 streams kas mid marar qaarkood practical science sameyn karo ma jirto inta badan deegaanadeena maxaa marka intaas marka aad hal mar hadaynan sameyn karaynin waad garan karaysaan toddobaadkii waxa laga yaabaa classkii inuu hal lesson oo practical kaliya qaadan karo marka we are going to create distinct laboratories physics laboratory biology laboratory chemistry laboratory for each and every of our major schools hadii la yiraahdo with the libraries to boot buses for the schools hadii la yiraahdo so that exchange programs with other parts of the country become even more easier hadii la yiraahdo waxaan kaloo idin sheegayaa markan resource-kii ilaahayna siiyey koobaad aan sidaas u maamulno oo waxbarashadii aan ka tayayno waxaan haddana u dhaqaaqi doonaa insha allah khayraadka xige oo ah dhulkeenna inaan ku intifaacno dhulkeenna wuu baaxad weyn yahay waad aragteen Wajeer South inta ay gaarsiisan tahay dhulkaas dhul badan ama meelo badan oo beeraha ku wanaagsan baa jiro dadkeenna waa inay u dhaqaaqaan inay dhulkooda ka soo saartaan mataqaanaa ee khayraadka ay ku noolaanayaan dalaga ka soo baxo Wajeer South waxaan rabnaa in lagu iibiyo supermarketyada Nairobi hadii Ilaahay yiraahdo magaalada Wajeer lafteeda suuq farmers market la yiraahdo duleedka laga sameeyo khayraadka iyo dalaga ka soo baxa Wajeer South halka loo iibgeeyo awalan wixii inta ka soo dhaafsisanna aan halkan iyo mataqaanaa meeshan doonaan u iibgeeyno xoolaheena waa khayraad kale iyaguna inaan ka shaqeyno waa laf dhabar ay u tahay geedi socodkan hadda aan ku jirno waxaan kaloo idin sheegayaa malaha maalmahan dambe dadku xogaa way ka qalbi jabeen in intii waraaq la qorto qof madaxa waraaq xafiiskiisa loo geysto taas dhaqankaas baan soo celin doonaa annagoo dib u furi doono xafiiska Habasweyne ka dhisan ee community constituency development office oo shaqaale mataqaanaa laga yaabo qaarkood inay halkan fadhiyaan maanta Allahu a'lam waxay ku xirnaan doontaa how competitive you are la geeyo hadii Ilaahay yiraahdo oo ummadooda u adeegaan anigana aan ku kormeero hadii Ilaahay yiraahdo waraaq walbo la soo qorana laga jawaabi doono cunugii agoon ah ee aan haysanin cid ka dhiibto fiiskiisa uu waraaq soo qoran karayo jawaabna heli karayo hadafka uu doonayayna uu ka heli karayo madaxdii uu soo doortay hadii Ilaahay yiraahdo xafiis baan isaguna ka furi doonaa Wajeer dadka deegaankaas degan si aynan ugu dhibaatoonin inay Habasweyne keenaan iyaguna ay waraaq u geyn karaan ama la kulmi karaan howlwadeennada xafiiska MP-ga ka tirsan hadii halkan ay noqoto xafiiska MP-ga halkanna waan ogahay dhibaatooyinkiina ugu waaweyn waxa weeyaan waraaqaha sharciga aqoonsiga baasaboorka waxaan idin sheegayaa insha Allah in shaqaala arrimahaasi kaliya u xil saaran ay xafiiska ka tirsanaan doonaan idinkuna aad ka faa'iidi doontaa hadii Ilaahay yiraahdo walaalayaal waxaan idin sheegayaa maalin walba ma sameyn karno hal shay ama laba shay ama dhaqan aan leenahay oo ku celcelino annagoo mataqaanaa hadafkayagu yahay wax kale ma heli karayno natiijada aan doonayno hadii aanan bedelin dhaqanka siyaasadeed ee aan leenahay ee aan madaxda qabiil ku soo doorano 60 sanaan qabiil ku soo dooranayna madaxdayada waxaan ka dheefnay ee qoqob iyo kala qaybsanaan ah iyo tayaxumo maaragtay hogaamineed ahna waan ognahay sanadkan ha laga bedelo hawsha sidaas sanadkan ha lagu saleeyo yaa wax qaban karayo yaa wax tari karayo
waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay ay tahay marka inta idin soo sheego oo dhaqaalihii kobcintiisii dumarkeennii dhalinyarteennii inaan dhaqaalaha ka kobcino oo aan u samayno meherado ay iyagu mataqaanaa ku tiirsanaan karaan laga soo tago diinta lafteeda in wax laga qabto way tahay diinteenna yaan uga gudbi karaynaa dhibaatooyinka inta badanna haysto ubadkeenna waa inaan diinta barnaa macaadiyadaas iyo madarasooyinkaas mataqaanaa deegaanka Wajeer South meel walba ka furan haddaanan la taakulaynin ma aflaxayaan haddaynan aflixinna haddee annaga ay ceeb nagu tahay marka anigu waxaan idin ballanqaadayaa in diinta iyo macadyada diinta iyo qolooyinka dacwadda wada ee wadaadadeenna ka midka ah aan anu isgarab istaagi doono haddii ilaahay tiraahdo oo haddii ay noo suurta gasho qorshuhu uu yahay magaalada Habaasweyne jaamacad islaami ah oo qalabkeeda u dhan yahay aan haddii ilaahay yiraahdo ka furi doono oo aan hawsheeda gali doono mar alla iyo markana la soo doorto xilkaas aan doonayo waxaan aaminsanahay inaan qaban karayo inaan amaanadaas xifdin karayo ayaan aaminsanahay khibradeedii leedahay caloolnugeelkii ummadayda aan u qabay aan leeyahay maxaa yeelay meeshaan joogay haddii ay dadka qaarkii joogaan in yar unbaa un ku dhiiran lahayd in ay ka soo tagaan meesha aan ka soo tagay in yar baa ku dhiiran lahayd in anigu meeshii aan joogay ee aan ka joogay xirfadii aan hadda intii ka horeyso waday ee saxaafadda in yar unbaa ku dhiiran lahayd inay ka soo tagto waxaan uga soo tegay oo aan qaxarkan u soo doontay oo in faraqa lay qabsada aan u soo doontay intay dadkayga wada dhibaataysnaan lahaayeen anigu aan dhibaataysnaado xilkaasna waan qaban karaa hal daqiiqana idinkama luminayo iska dhaaf hal maaline hal daqiiqa alla xos kuma noqonayo baarlamaanka Kenya waan garanayaa waxa laga qabto waan garan karayaa hawsha la ii diray waan fahansanahay cid gacanta inay qabato aan u baahanahay ma jirto adduunkaas baarlamaanka ka casrisan Kenya ka soo shaqeeyay ka soo waramay gudahooda galay waxaan ka soo waramay baarlamaanka Ruushka Duma iyadoo -30 degrees ay hawadu tahay waxaan ka soo waramay baarlamaanka Spain magaalada Madrid iyadoo Mariano Rajoy prime ministerka wadanka Spain dacwad musuqmaasuq lagu soo ogay oo baarlamaanka uu dhageysanayay 2014 waxaan ka soo shaqeeyay baarlamaanka Faransiiska oo cod u qaadayo inuu aqoonsado Falastiin iyo in kale House of Commons, the Parliament of the United Kingdom waan ka soo shaqeeyay waxaa kaloon ka soo shaqeeyay baarlamaano badan oo dacallada adduunka ku kala yaala wada loo mara siyaasadda la ima sheegay 25 sano siyaasi hor joogay siyaasadna ka waramayay waqtigeedan kama luminay aniga insha Allah taala ummadaheenna Wajeer South ka baxsan ee ama Nairobi degan ama Garissa degan ama xitaa mataqaanaa ee kuwa la dulmay ee bulahodan degan waxaan idin sheegayaa waxaa idin soo baxay madaxdii idin adeegi lahayd oo meesha aad joogtaan idinkugu keeni lahayd adeeg wixii aad u baahnaydeen insha Allah taala cid qabiil la weydiinayana ma jirto waxaa kaloon idiin sheegayaa 30% CDF-ta hadday sida hadda ay tahay 100 ay tahayna 30 milyan baan gaarsiinaynaa basaris haddii sida hadda la sheegayo 300 milyan laga dhigana 100 milyan baan ka dhigaynaa basaris ilaa kuwa jaamacadaha dibadda joogaan ka bixina insha Allah taala waxaad isu diyaarisaan waxqabad wax ku oola oo la ciraan ciriyay oo laga soo shaqeeyay oo inteeda badan ku dhisan wada tashi idinka la sameeyay insha Allah taala waxaan idin ka codsanayaa codkiina iyo hura
ammaan moogi inaan xumaan idin keenayn baa aaminsanahay codkiina iyo hore markaad ii hurtaanna ilaahay ha la ii baryo inuu igu dhowro insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.